salaysnaa waxay tahay qof kasta oo Soomaaliya xaqiiqdu waxay tahay Soomaaliya ayaad Soomaaliya ku tahay دون بقى صارنا حدد هذه لنا على أكد وللسد أنا أقول هذا ولا صحصين بيها هالكان أولو سيد قوم كي وحاجة وقلة وإن الودة تجيس حقيقة تصح الصومالي وحيت هذا الجيل مركوش يو أي حوالها بيع بيا لكن هذين الجيل اللي في في الأرض محي هذا قري يو بانجلاديش اللي تاجي حوالها بلاد يقول عارف كان dawladdu marka waa inay qaab dawladeed ku qaabisho isirrada keenaya isqabadiyada waxaa kamid ah Norway baa kamid waxaa kamid Kenya waxaa kamid dawlado kale oo dana gaara kale laakiin shacabku aanay la xisaabtami karin iyagu waxay doonaan dalkay ka qabsanayaan marka garba la tusaaye hay'adahaas waxa la xisaabtami kara dawladdu waxaanu leenahay dawladaha danta kale Soomaaliya waanu soo dhaweynaynaa sababtoo ah anagu wadan baan leen waxaan se ku soo dhaweynaynaa qaabka protocolka uu leeyahay oo ah inay dawladeenaas yarta ah oo hadda noo dhalatay la xiriira dawladdeena iyadoo Soomaaliya matalaysa ay wixii calaaqaad ah ku kala bedelanayso danahaas ay u fuliso laakiin in sidii hore loo haysto Soomaaliya oo xiriir anigaygaas kunay ku tahay aan soo xiray dawladdan Soomaaliyeed intii halkan la iska dhigo xiriir aniga shakhsiyan aan soo sameeyay in dawladda iyo dalka iyo deegaanka lagu habsaamiyo arrin soconaysa ma ahan arrin dawladda ku qumanna ma dawladda waxa loo baahan yahay mustawa dawladeed inay qaadato مرها uga qaraarato haday doonto jaaliyadayna Norway halkan degan waa inaan isku nimaadnaa oo aan suubsanaa waxyaabo oo adag oo dalad weyn ah oo aan wax ku suubsano urur badan ayaa meeshan jooga hadda horteed waxa fadhiya ururka jiitan gudoomiye jiitan baa fadhiya horteed waxa fadhiya maxay sultaankii baa fadhiya horteed waxa fadhiya ururkii daladii baa fadhiya horteed waxa fadhiya ururkii kale todo uu leeyahay siyaasiyiin oo halkan waxa fadhiya siyaasiyiinta culumadii fadhiya halkaas waxa fadhiya takhaatiirta fadhiya ilaahay baan ugu dhashay inta saan isku nimaadna ma kala tagnaa maalin walba macquul ma waa inaan wax aan isku ognahay aan samaysano oo aan iskaga celino dawladdan annaga hoos joogno oo carruurteena ugu ceshano gurigeena aan ugu ceshano wixii aan rabno tala aan ka jeesano oo aan maxaa dalkeena aan ka waraabsano oo dad aan dirsano dad aan keensano oo ayagana raalli ay noogu yihiin waxaan noogu fuul aniga waxaan soo arkay oo hubaala nin wasiira oo dawladda Norway ka tirsan oo yiri haddii aad heshaan hal urur amba hal dalad kaamil haddaad heshaan ballana idinkaa qaadnay inaan wax walba idinkaga dameyno xataa nin iyo xaaskii oo isfuraya inaan inarano kuwaas horta xagga soo mara marka xagga soo martaan annaga noo imaanaysa in la yiri aan soo ogaado marka macquul maaha sidaan dad waaweyn aan nahay dad mutacallimiin aan nahay dad islaam aan nahay macquul maaha saan intaan u nimaadno inaan kala tagno waajib maaha aniga waxaan dhihi lahaa tan midaan mid ka weyn aan qabsanno oo siyaala ka weyn aan isku soo aruurno oo xataa annaga yaa nala dooranayn malihi annaga hanala doorto annaga dhexdiina xataa dad ha laga soo bixiyo cusub oo annaga noo madaxa hala sameeyo laakiin bisharda waxaa inaan dalad jaaliyadda Norway ee leedahay ee dawladda Norway ugu dambaysa inaan samaysano oo aan loo kala socin qabiil iyo reer iyo waxban aan loo kala socin oo calankaas aan ku midayn qofna raali kama aan caruurtiisa laga qaato marka arrintaas waxaan leenahay rag iyo dumarba in loo diyaar garoobo oo la wajaho arrin muhiim ah weeye barlamaanka waa geynay oo meel walba waa geynay dawladda nidaamka system wadanka jira arrintaas in la ku joogfalayo laakiin waxaad moodaa anagu inaan isku joogfalayno annagii sida shaar sheegay ayna dad isku xiranahay ummadaha isku xirnayna cid walba cagta iska maraysa marka waxaan leenahay arrintaas isku xirnaanshaha laga muujiyo ha laga qayb qaato arrintaas arrin muhiim ah weeye meel kastoo la geynayo dalka hala laga waantooba sida gaarka qof kale iskaga socdo qof kale waxba ma qaban karo wadankan waa wadan organisata qaab organisation buu leeyahay haddii qaab organisation loo shaqeeyana dad gaar oo nacayb gaar nagu ma hayaan dalkan way ayaga nagu soo dhaweeyay oo aqbalo ogolaaday marka in carruurteedii aan u weyno qaab ay ugu noolaadaan dalkii oo dadkii ilmihii kale dalka ku noolaa la mid noqdaan arrin dhibaato weyn waxaa soo haray marka wadankan saa ogtiin xisbiyo badan baa tartamaya waqtigii doorashada lagu jiraa anigu waxaa ka mid ah xisbiga shaqaalaha saa ogtiin oo city councilka muddo dheer baa ka mid ah haddana waxaan ku jiraa golayaashiisa xisbiga shaqaalaha ayaan ku jiraa
waxaa marka jira arrinta laba kala doora marka xisbiga shaqaalaha oo hadda xukunka haya oo coalitionka iyo waxaa tartamaya xisbiga hoyraha oo garabka midigta saa ogtiinba oo kaashanaya xisbiga FRB saa ogtiinba siyaasiyiin FRB ka mid ah waxay soo qoreen jaraad ku soo qoreen oo sida war cusub oo kale iyo aad ka arki kartaan dadkii xaarka ah oo dalka xaarka ka yimid dalkii ay baabaasheen hadisteen oo naga tagin dowladda inay qabsadaan marka waliba qaybta sharciga inay qabsadaan bay ku doortay ilaa 6 wasiir baa la saadinaya ku yeelan doona haddii xisbiga shaqaalaha dhaco waxaan leenahay marka dad badan oo Soomaaliyeed baa codkooda cod bixinta xaq u leh gaar ahaan halkan waxaa jooga ururadii waaweynaa sida daladii isbiin sida G-Time sida ururkii nabadda sida ururadii hooyooyinka sida ururadii oo dhan baa jooga kuwii caafimaadka jooga waxaan leenahay ii sheegay in dadka la wacyigeliyo cod bixinta laga qayb qaato dadkana loo sheego arrinta soo socota isbeddelka siyaasadeed dalkan mid xanuun badan buu nagu noqon doonaa dadkana minority-ga hala taageero dowladda coalition-ka oo hadda jida wixii kasta ee la samaynayo aniga aan mas-uuliyadeeda marnaba gelaynin guddi fulin iyo golo dhexe midnaba gelaynin oo hubo oy tahay go-aan anigu aan gaadhay haddana wax walba oo ummadani ay ku midoobayso waan kala shaqaynaya sayare wuxuu ku saabsanaa baroordiiqo aanu sameynay dadkii ka qaraxi ka dhacay 14 abriil ee lagu laayay dadka masaakiinta hadda korna ay dhacayeen oo ay ugu dambeysay iyadoo ay ugu dambeysay Cabdulqaadir Garowe lagu dilay wadaadkii caalimka caanka ahaa marka waa maanta inuu ku wareysay taas waa ku tacsiinay heladii mid kale dawladda inaan taageerno oo u gudbino waxyaalo badan oo daldaloola waxay ku fiican tahay iyo waxay ku qaldan tahay dawladda inay gaarsiinana waa ka wada hadlay